nawaal waa waqti uga duwan kii horay u soo maray ee ay ka qaaday naxdinta iyo niyad jabka. 2 cisho ka hor waxay ahayd gabar shaqo la'aan ah, dhowr shaqo oo ay raadisayna lagu xiray shuruud ah inay ku bedelato jirkeeda. laakiin haatan waxay dadkan oo idil u gogol fadhiyaan inay ku soo dhaweeyaan shaqadeeda cusub iyadoo sharafteedu ay dhowrsan tahay. nawaal maxamed abuukar oo wejigeeda laga dheehan karo farxadeeda la xiriirta fursadda shaqo oo ay siiyeen some option ayaa sheegtay inay garowsatay in keli aysan dunidan ku ahayn oo ay jiraan walaalo Soomaaliyeed oo ka damqaday dhibaatada ay u soo gudbisay dhammaan dadka Soomaaliyeed, waxayna ka mahadcelisay shaqada la siiyay. waxaan u mahadnaqayaa shirkadda Som oo maanta igdoonsiisay shaqadeeda sidoo kale waxaan mahadnaqayaa TV-ga shanta Soomaaliyeed iyo walaalkeyga Maxamed Jino oo maanta ilaa iyo arintan igu dhacday garabkeyga taagnaa soo marna iiga ka tagin aadan ugu mahadcelinaa walaalkeyga dhammaan waxaa u sii mahadcelinaya TV-ga shanta Soomaaliyeed mar labaad aad maamulahooda dhammaan inta ka wada shaqeyso waxaan dhahayaa mahadsantiin dhamaantiina aad iyo aad waxaan fariin u dirayaa gabdhaha Soomaaliyeed meel waliba joogaan أنا واحد بيوم مدعين الحمد لله لكن واكبت باذي سو إلها قرب كي جمر واللي بتاكنا لكن قبل الصوماليات مرنا ينا كهر مرنين شرفت هذا الشقة مثلا العك تاسو يجد جنين munaasabadan oo ujeedada laga leeyahay ay tahay in gabadhan lagu soo dhaweeyo ayaa waxa ka qayb galay madax ka tirsan maamulka gobolka Banaadir waxayna ka dhacday xarunta dhalinyarada ee gobolka Banaadir. Jawaahir Baarqab ayaa si cara leh uga hadashay in hablaha lagu xujeeyo inay jirkooda ku bedeshaan shaqo waxa ayna bogaadisay nawaal waxa hadda nagu haray oo raadadka ugu dambeeyo ah dadkana la rabo inay ku baraarugaan haddaan dalkan muqaadaraadka laga joojin haddaan la dhisin ciidankii maaragtay barnaamijkan shaqada ku lahaa oo boonakastumo ee anshaxa lagula dagaalamin haddayna dadka mas'uuliyiinta ee xafiisyada jooga iyo hantiilayaasha hodheelada jooga aynan ogaanin shaqaalaha ay qaadanayaan inuu yahay mid saliima qatar badan ay ku dhacayaan gabdhaheena taas marka waxaan leeyahay waa mas'uuliyad wadareed noo wada taala in gabdhaha maaragtay la ilaaliyo sharaftooda iyo karaamadooda gabar yar oo 19 jir waa dareemi kartaan hooyadeedii aabeed qoys dan yar ka dhalatay rabta inay waaga markuu bariyo ay ku adagtay inay waxbarashadeedii sii wadato laakiin bal ay siri reerka u shaqo tag oo maanta adaa reerka u hana qaaday cidii u shaqeeyo xoogaaga ugu shaqeeyo oo rabta inay qoyska wax ka bedesho markay goobta shaqada tagta hadii la yiraahdo maxaad iigu bedelay waa wax aad looga xumaado waxaan leenahay marka qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed arintan ha ka dhiidhiyo dabcan waxaan rajaynayaa in madaxda qarankan ay gaari doonto waayo sidaan u daawanayaan waxaan rajaynayaa in gabadhan qolada maaragtay hay'adan hadda qaadatana waxna ay baraan ayaduna ay shaqaysato waxyaabaha ilaahay nagu xisaabtamayna tana kamida marka telefishinka shanta TV aan leeyahay aniga oo shanta qaaradooda dadka Soomaaliyeed ka hadla ay daawadaan uguna daada yaraan leeyahay warbaahintana mardhow ku soo biiray laakiin shaqooyinka ay qabanayaan ka duwan yihiin kuwa kale dabcan mawduuca hadda caawan u gol joognana ku dhawaad 1 milyan oo qof 500 haday kor u dhaafto iska 1 milyan xilligan waa laga yaabaa inay ku dhawdaay oo Soomaaliya ayaa daawatay kilibka meesha hadda aan u fadhino. wariye Maxamed Yaxya Jino oo soo bandhigay sheekadan wuxuu qudhiisa ka hor muujiyay kulankan sida ay dow u tahay in laga hadlo xuquuqda gabdhaha. marka ugu dambeyn waxay go'aansatay iyadoo gabar ah 19 sano jir ah inay arintaas ka soo horjeesato tan igu kaliftana waxay ahayd inaan warbixintan soo bandhigo arimahaasi oo ah mid magaalada ka jirta waxaan hubaa inay ka jirto xafiisyo badan oo anigoo kala saareen dhowr xafiis ayaa arintan ay ka jirta laakiin dhinaca dawladda iyo dhinaca xafiisyada kala gaarka loo leeyahay ay ka jirta farmashiya ugu yar way jirta marka laakiin markii aan arintan u dhabagalnay waxa Ilaahay sahlay in gabadhan waxa jiro dad badan oo cabsanaya marka ay arintaas aan baahi kadib ila soo xiriiro dhahayo messengerka aniga sidaas ay ugu dhacday gabar waxa jirta boosaaso joogta oo itiri hadaad soo gaarto xagga wali waxaan shaacinayaa xafiiska
arrimahaas igu sameeyey marka waxaan jeclahay mar un inaan xagga tagi doono si aan warbixintaas usoo diyaariyo kulley qofkee markaa saameyn doonto isagee aabe dhehaysaa mas-uuliyiintii kale ee halkaasi ka hadlay waxaa ka mid a basma caamir guddoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir waxay bogaadisay tallaabadan ay qaadeen dhalinyaradan Soomaaliyeed oo ay ku shaqaaleysiiyeen gabar da'yar ah oo shaqadoon ah dhibaato walba qof loo geystana in isla xisaabtan uu jiro shalay haduusan jirin isla xisaabtan maanta isla xisaabtan ayaa jiro in loo dul qaadan doonin dhibaato qof bini aadan in la dulmiyo haddana ay gabarta gabar waa meesha kaliya ee qofka bini aadanka gabadha waa dareemi kartiin sidii u tahay in loo ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala karaamadeeyay ee dumarka suurta nisaa lagu karaameeyay in rasuulka cali salaam la karaameeyay marka annagu karaamadaas intaas ay tahaysano in qof bini aadan oo bashar ah inuu ku xadgudbo diinta islaamka ayaa ogoleen waxaan leenahay diinta islaamka in lagu dhaqmo islaamnimada in la xoojiyo wadannimada in la xoojiyo dhiigga walaaltinimo in la xoojiyo aadaan usoo dhaweynaa waa idinkaga mahadcelinaa sidaad ugu istaagtay dhexda ugu xirateen kan xun dhibaatada uu sameeyay wiilka qaldan wuxuu sameeyay kan wiil kale oo dhaqaayo oo asaga ka wanaagsan oo ka dhiig badan inay gabdhaha Soomaaliyeed ay haystaan waa dareemi karaa wiilasheena inaysan u dul qaadanin gabar in la dulmiyo wiilasha Soomaaliyeed dhiigga ay leeyihiin qof walba marka waa idinkaga mahadcelinaa wada shaqaynta fiican iyo wanaaga Cabdinuur Cabduqaadir Maxamed waa maamulaha shirkadda Som Option oo ay nawaal shaqaaleysiiyay sababta aan u daawaday waxa aniga gabdho badan ay la dhashay oo xaqiiqatan reerkayga wuxuu ku koobnaa gabdho aad u fara badan oo aan ka weynahay oo aan soo koriyay waxay ugu abuurtay marka dareen aad u xun oo aysan dadka kala qabin kabacdi waxaan go'aansaday waxaan aad u raadiyay TV-ga markaas agaasimaha wuxuu ku maqnaay magaalada Nairobi ana casuumay waxaan ku yiraahday how videogaas aad u mahadsantiin muuqaalkaas aadaan uga helay waxaan jeclaan lahay in aad balxamar igu timaado si aan arinta gabadhaas aan sidii dhibliga aan u ogaano waxa dhabta ah jira agaasimaha qaar Allah siiyo wuu iga aqbalay markuu iga aqbalay xamar u yimid waxaan haddana mar labaad la kulannay wiilkii macluumaadka sameeyay wariyihii macluumaadkan sameeyay wariyihii haddana kulannay sheekadu iga sheekeeyay gabadhii sideen haddana ku kulannay waatan hadda aan annaga u ogolaanay annaga waxaan leenahay gaar ahaan waxaan agaasimo ka ahay ama maamulo ka ahay Som Option Academy oo lagu barto horumarinta dhaqaalaha iyo kobcintooda macadka marka waxaan go'aan ku gaarnay gabadha inaan wax barno shaqana siino qiimo markaasi loo sheegay aan xoogaa uga roonaano maadaama ay ahayd qof dhibana ayadana waxaan go'aansanay inaan bal qiimaha ka duwan si naxariis leh ehelnimo walaalnimo inaan aydan u siino ugu dambeyn shahaada sharaf ayaa la guddoonsiiyay telefishinka 5 Somali TV oo lagu abaalmariyay kaalintiisii uu ka qaatay soo bandhigida sheekada Nawaal agaasimaha guud ee telefishinka Fuad Cabdi ayaa ka hadlay annaguna waxa waaye waa ku faraxsanahay warbixintii bulshada annagoo u adeegayno in lagu amaano oo maanta xaflad mahadcelina shirkadda iyo 5TV loo wada qabto oo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir iyo qaar kamid ah gudoomiyaasha gobolka iyo gudoomiyaha dhalinyarada iyo gudoomiyaha haweenka dhamaan ay ka soo qayb galeen iyo ganacsatada kale iyagana waa u mahadcelinaynaa arrimahan oo kalena waa sii wadi doonaa inaan xoojino si aan u soo heli lahayn warbixino laga sameeyo dadka dhibaataysan ama dadka dulman ee aanan banaanka yaalin marka sheekooyinkan oo kale kuwa badan oo sameynayna waa jiraan kuwa badan oo listiga noogu jiro oo aan rabno inaan sameyno oo aan banaanka keenana waa jiraan waana soo bandhigi doonaa Munasar Maxamed Cabdi 5 Somali TV